ruuxa dumarahe aada mehersatee ku tiri taftayda qaban maysid ilaa aada meherkii soo qadinto xaq bay u leedahay laakiin meherku waa markaanu mu-ajal ahayna uu xaalo yahay maxaynu uga jeednaa haddii meherka wakti loo qabtoo la yidhi bila kadib baynu isa siin doonaa dee marka diidmo xaquma leh haddii laakiin meherkii la magacaabay oo ay ku tidhaahdo kaa la magacaabay ilaa aada isiisa ii galmoon maysid xaq bay u leedahay xadiid saxiixa abi daawuud ku sugan baa wuxuu tilmaamayaa cali bnu abi aalib markuu inantii qiimaha badnayd ee faadime ee nebi maxamed dhalay guursaday nebigu wuxuu ku yidhi inanta intaanad u galmoonin horta meherkii wax soo sii waxba ma haye buui war waad haysaayoo diricii xutamiyada ahayd baad haysaa soo sii buui diraca xutamiyadu waxa weeye waa qalabkan dagaalka laga gashado riwaayadu ma sheegaysa inuu cali keenay iyo in kale laakiin shardigu nebigu ku xidhay bay ahayd culimmadu waxay leeyihiin halkaa waxaa laga fahmi karaa inay gabadhuna codsan karto weligeeduna codsan karo marka laakiin waa meherku marka aanu mid la dibdhiga ahayn ee uu yahay mid wakhtigiisu taagan yahay haddii la shardiyeyna waabay kasii adag tahayba oy tiri ii galmoon maysid ilaa meherka aada isiiso axaqu shuruudi an tuufuu ma staxlaltum bihi lfuruuj xadiidkaa saxiixa nebigu wuxuu ku yihi shuruud la oofiye waxa u fiican waxa uu ninku cawrada gabadha ku xalaashaday